guddi hoosaadka guddida joogtada iyo anshaxa ee golahaasi wakiilada Somaliland ayaa maanta waxay kulan xog waraysi ah kula yeesheen xarunta baarlamaanka Somaliland mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland mudane Salmaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa warbaahinta faahfaahin dheer ka siiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen guddida joogtada iyo anshaxa ee golahaasi wakiilada Somaliland gudoomiyaha iyo xubnaha guddiga joogtada iyo xubnaha golaha wakiilada aadaan salaamaya guddidu wasaarad ahaan ay noo yeereen iyagoo gudanaya waajibaadkoodii dastuuriga ahaa waxay noogu yeereen inay wax ka ogaadaan guud ahaan xaaladda caafimaadka dalka gaar ahaanna ay ogaadaan halka ay marayaan xanuunadii ka dhashay abaarihii dalka ku habsaday ay ka mid ahaayeen shubanbiyoodka jadeecada iyo nafaqadarrada warbixin baanu siinay ku wajahan codsigooda iyo xog waranka ay naga doonayeen warbixin dhinac walba leh iyo meesha xaaladda caafimaad ee dalka hadda marayo wixii ay su-aalana weydiiyeenna waan ka jawaabnay si wanaagsan oo dhacday aad iyo aadna wadi salaamaya asalaamu calaykum Salmaan Ciise Axmed wasiirka wasaaradda caafimaadka waxa uu si mug leh uga warramay heshiiskii ay xukuumaddu la lahayd maamulka Khaatimo iyo sifaha uu Cali Khalifa ku joogo caasimadda Somaliland وأنا نظري ونعم يهرمون كدلك كغير قاطع المسؤولين أنا حكومة مدحونا سوريا السلمان الآن مدير أحمد محمد محمد سلمان الكاملة وحبان قريبا كاه والعرب يسولون على خليل geestigana xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba gudoomiyaha guddida joogtada iyo anshaxa ee golahaasi wakiilada Somaliland ayaa sharaxay waxyaabaha ay iska xog wareysteen mas'uuliyiintaasi wasaaradda caafimaadka Somaliland ka guddi ahaan marka hore wasiirka iyo agaasimaha wasaaradda iyo Dr. Shiine iyo tiimka la socda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ajiibida ay soo ajiibeen guddiga joogtada ee golaha wakiilada guddidu muddo ka badan 3 saacadood ayay xog waraysi la lahayd wasaaradda caafimaadka maanta waxa keenay xog waraysigaasi waxa weeyaan saalada socotaan abaartii baahsaneed ee dalka ka dhacday waxa ka dhashay cudurrada shubanbiyoodku ka midka yahay sidoo kale waxa ka dhashay nafaqadarrada iyo jadeecada ka wasaarad ahaan waxa ay ka qabteen iyo waxa ugu qorshaysan inay kaga hortagaan ayaa u badnayd xogaha guddidu ka wareysanaysa wasaaradda sidoo kale waxa ay guddidu wax ka weydiisay hay'adaha caalamiga ah ama kuwa UN-ta iyo kuwa UN-ta ahaynba iyo dowladaha kale ee saaxiibada nahay Somaliland haddii nahay ee naga caawiyay kiisaskaasi runtii si baaxad leh oo mug leh ayay noogu warrameen waxaase aan u soo jeedinayaa kelmadda aan ku darsanayna nooga soo baxday warbixintan waxa weeyaan marka ay dhibaatooyinka noocan oo kale ahay waddanka ka dhacaan ee ka qarxaan waxa loo baahan yahay xukuumaddu inay samayso gurmad qaran wasaaraddu itaalkeedii way oroday meel u harsan Somaliland oo aanay caqlihin ma jirto oo xanuunadaas ka dilaaceen laakiin waxa ka maqan waxa weeyaan hantidii qaranka ee ay ku shaqayn lahayd tusaale ahaan sanduuqa kaydka qaranka la yidhaahdo oo loogu talagalay masiibooyinka noocan oo kale markay dilaacaan waxaan noo caddaatay wasaaradda wax ka soo gaadha haba yaraatee inaanu jirin waxaanu markaa ku baaqaynaa annagoo kala hadli doona cidda ay khusayso una yeedhi doona wasaaradda maaliyadda in arrintaasoo kale loo wada leexiyo dakhliga dalka ka soo baxa sidii loogu hortegi lahaa xanuunada iyo cudurrada faafa gacmaha lasu wada qabsan lahaa ee loo fulin lahaa ayaanu insha allah iyagana kala hadli doonaa baaqna ugu diraynaa bulshada reer Somaliland waxaanu leenahay haddii aydan idinku la shaqayn hay'adaha iyo wasaaradda caafimaadka ee ka shaqaynaysa xanuunada ay ka midka yihiin jadeecada iyo shubanbiyoodka iyo nafaqadarradu waxay gaari karaan way yar tahay
waxaa loo baahan yahay tallaalka in la xoojiyo waayo waxa maanta waddankeena kusoo celcelinaya xanuunka la yidhaahdo jadeecada waxa weeyaan tallaal la-aan carruurteenna da-da yar 1 sano ilaa 5 sano waxay noo sheegtay wasaaraddu ama wasiirkuba noo sheegay in la soo wado qorshe loogu talagalay ilaa 15 jirka bulshada reer Somaliland in laga talaalo xanuunka jadeecada saasaynu kaga gudbi karnaa inaan gacmaha isku qabsan marka waxaan leenahay u soo jeedinaynaa ka gol ahaan in tallaalka la siiyo carruurta oo tashuushka iyo dacaayadaha laga shubayo ka soo horjeeda tallaalka jadeecada laga saaro meesha aad iyo aad